الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سنة خيارة نداونا يساي هالكني هو تلفزيون كما حبنا نبولش تي في وأنا تجي ساعة مقالة برعو برنامج كعاو وحنا كسو قادم دونا وحياة فرقدان وأي كم ديهن حوارنا يقولي بقى تساليال مهم أو أي أرضي دان فرصة أهلين إنه وحبرتان أما باي وحبرتان أي كبر كران برنامج كمان تا وحنا قيب تسارة كسو قادم دونا قيب ورقة وسيد ورقنا إنه سوق بينه قيب تطبيق برنامج كنا وحنا كسو قادم دونا ورئيسي سؤال السويدين يدو ولي بقى برنامج كيامل حوارنا وحنا إذا كنت لك الله أما بعنا إذا كسو قادم مسؤولين كبحي جامعات أما بقى دكتور وأنا متكلم متوجين برنامجك وبرنامج حوارنا وحنا كلام بحدثان تساليات مهمة وخرله إسلام مركزنا ونقوم كرائنا أديك لفتك وحكي براتيده برنامجك ونقدرنا إن شاء الله بالله الكريم أنت صارنا وبرنامج وقصة حسن اللي يرضى أن فرصة هنا وحبرتان لكن يقوم مرقود استعمالها أما بالله يقال مرمالها waxaa jira boqolaal dhalinyaro ah oo ay u suura gali weyday inay wax bartaan isla markaasna naftooda ku maareeya xoogooda ama ay adeegsadaan dhabarkooda isla markaasna waxa ay mararka badan xamaalaan alaabaha ay bakhaarada dadku ka iibsadaan iyagoo qaar kalena ay baalasheeyaan kabaha amaba ay dadka u maydhaan intaasoo keliya maaha ee waxaad arkaysaan waa qaar ka mid ah dad rag waaweyn kuwaasi oo xamaalanaya isla markaasna kala guraya beeyada amaba xabagta loo yaqaan beeyada nolol xumada iyo la soo darista dadkan ayaa waxay habeenkii kala kulmaan in haddii ay dhacdoba lacagta marmar laga qaado maalintii oo dhan ay soo shaqaysanayaan iyagoo qaar ka mid ah dhalinyaradaasina aanay haleelin amaba aanay helin inay wax ku iibsadaan xitaa 3,000 ee baalashka taasi oo ay nasiib darro ay ka dheer yihiin kuwa xogagooda u xoogsada si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horeysay ee arrintani ka dhacdo Soomaaliya laakiin waxa weeye uu caqabado iska jira isla markaasina ay ka siman yihiin inta badan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Soomaaliya iyadoo ay jiraan qaar iyaguna naftooda aan u turin isla markaasina jiida xabagta jaamacado ka soo baxay qaar dibadda iyo qaar dalka gudihiisaba isla markaasina iyagu aan midna midoobeyn tusaalayaasha jaamacadaha iyo weliba iskuullada ay markii ay soo mareen iyo weliba caqabadaha ka horyimin jaamacadda ay ka soo baxeen iyo kharashka kaga baxay in barnaamijka ku soo qaadan doonaa barnaamijka aan ugu horeysiiyo wareysiyada waxaan ugu horeysin doonaa Hussein Muumin ayaan ugu horeysin doonaa oo isagoo ka soo baxay jaamacad ku taalla dalka Kenya isla markaasina macallin wax ka dhigay iskuulka Smart isla markaasina dugsiga sare waxaana uu macallinkaasi isaga takhaquskiisu yahay tiknoolajiyada cusub ee haatan casriga ah ee ka shaqeysa caalamka oo idil bal aan weydiiyo amaba su-aasha ugu horeysa ee aan wadaajinayo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday waxa ay tahay bal aan weydiiyo Hussein Muumin caqabadihii ugu adadkaa ee ka hor yimi intii waxbarashada dugsi dhexe iyo dugsi hoose iyo ilaa jaamacadda uu ku jiray والله حديان كورا ما ده وحنا الصبري قرانتي أنا كمان صبرنا ده ودن كان كمان برنا وحنا كبرسي ودن كاسيت كينيا ويا difficult أو لحية ده ده مش هتشوفتي هالكاسيت هالكا حديان كورا ما ده بس ده كصومري يوم أنتا يوحنا صومري نعودن كينيا وحكم إذا هذه مركي سكول فيسكا ولا جنب حيار وصل يوم أبا أفنى تصاع في كينيا يو هذه يوم أنتا haddii aad fiig aad haysan aad meeshaad fadhiisan karin oo laga xareysanayo kuraasta iyo wax kale laga xareysanayo marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye anigu ahaa ina form 3 anigu form 3 ayaa schoolka laga eriyay because of sababta ay sababtay lacag biraadi anigu taasayta dhibaatadii haystay waan ka soo ilaa markiis waan ka helay oo scholarship baan helay scholarship ay bixisay dhinaca dawladda الحمد لله من كل ما يستاهل لا يسكندرية الكاس يقول لي بنات اسكندرية لنا. زين مؤمن أبو مهتن يهاي من كي حاتنا وحن كسر وين يا برنامج كا أما بان سؤال ساس لفتي كده ويدين دونا إن شاء الله بالملة الكريم هذه راهي كرديجو أدي إلى هاي كرديجو وحن سعيد عبدي ويسمونا كم من اللي يرد جامعة سود مية أما بيلا تكسر سنة وحبرشة إذا كسر قاتي دل كان جمهورية الصومال الإسلام كاسنا عندنا عقبهم وحنان su-aasha ugu horeysa aan weydiinaya waa islaabtii hore oo waxa weeye caqabadihii ugu waaweynaa ee ka hor yimi intii waxbarashada ugu jirtay bismillahi raxmaani raxiim marka koobaad aad baan idinku mahad celinayaa baahdiina bulsha t v ilaahay baa mahad leh ina kulisiiyo waqtiga marka labaad
sideedaba tacliinta waxbarashadu waa silsilad qof walbaaba uu bilaabo ama leh position qof walbaaba si uu ka geli karo anigu gaar ahaan tacliinta ama waxbarashada waxaan bilaabay taariikhdu markay ahayd 1900 weliba waxbarashadan iyadoo xagga dugsiyada waxaan bilaabay aan ahayn tii diiniga ahayd taariikhdu markay ahayd 1969 intii waxbarashada waday caqabadaha waxbarashada kala kulmi karaa wax aad u tiro badan marka ma oran karno waqtigaa markay ahayd ama maalinta ay ahayd ay wax caqabadaha waxbarashada iga hor yimaadeen waxbarashadana waxay leedahay waxbarashada asaasigii sideedaba saan soo sheegnay waa silsiladaas wada waxay leedahay waqti bilowa heer dhexe heer sare iyo mid jaamacadeed mid walba wuxuu lahaa waqtigeedii way marka ma oran karo waqtigaas arrinkaas u jira aad badmaatay sicid waxaynu la wada soconaa inaad tahay macallin kadib markii aad soo dhamaysatay waxbarashadaadii macallin ka mid a macallimiinta wax ka dhiga gobolkan togdheer gaar ahaan iskuullada sare bal waxaad nooga warantaa caqabadaha ugu waaweyn ee aada ardayda aada ku aragtaan kole idinku macallimiin baa tihiin xoggaal baa idinkii ardaydu isu tihiin marka bal taas nooga waran wallaahi runtii dadkan waxu dhignaa waa dad dhalinyaraha soomaalidana waxay tiraahdaa inta uu wiil ka boodi karo geed ayuu tira ka booda marka waxaa jirta dhibaatooyin badan oo ardayga mid caqliyan mid aqooniyan mid akhlaaqiyan haystaa way jiraan hadda jeer markaan waxu dhigayno ardayda gobolka imika waxaad moodaa inay heerkii u canay marayaan runtii sababta waxaad arkaysaa annagoo dee leeg baynaan macallimiin waa macnihii encouragement u yihiin inay wax bartaan ama ay dhigtaan caqabadaha ugu badan ee ardayga la kulmo markaa waxaa ka mid a in ardaygii laga dhaadhicin kari waayo ama ardayga ay ku yar tahayba optionka ama fikraddu ku haysto inuu isagu noqon karo qof dalkiisa wax ka barta isla markaana wax kala soo bixi kara marka caqabadaha ugu badan ardayga naga sii xidhan karna waa in ardaygii laga dhaadhiciyo inay waxbarashadani tahay tii uu beri wax ku noqonayo amaba adduunyada amaba dalka ama bulshadiisa ama gobolka